tababarkan oo soo wada jaray geeka magaalada Xuduranka Fureen gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Abdi Tool iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo koonfur galbeed Ali Maxamed Ali Dhuus isla markaasina ku faa'iideysadeen 30 kumada dhalinyarada degmada Xudur oo iska jareen tumishan gabdhay ilaa iyo tumishan wiilal may baan la kabarday siyaasadda dhalinyarada koonfur galbeed istiraatiijiyada wasaaradda 2020 ilaa 2028 gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Abdi Tool iyo wasaaradda kuma hadlaysa marwalbiyada muhiimadan siyaasad horumarinta dhalinyarada sportiska may baan dhalinyarada kala dardaaramay intii oo mustaqbalka dalka waan ku faa'iideysadaan tababarkan la furay wadanka dhalinyarada hada Bakool dhalinyarada tan wala siin deersi inta dhalinyarada tan siin leey unun dadka wax deersi on hata gaabab saroon baahayn dadka unun dalkan ku tamna fadaan isugu madaan fiirina madaan fiiri wal badan asin kuma wal badan inaysan kordhidaan in baahan dalkan waa ilaa kamar ogdin 30 sano 4 sano hata marahay inta dalkan dagaal ka jari awteedin la siin dhalid la hata inta fadhiyo awteesa ka dhimadaan ka jar ku yaab lan walaalshay ka dhimada ka jar ku yaab dadka hadhimadan ma hadhimadan ina wadankan ku faa'iideysan walan la qowda isin la siin diirsi wadan ma leen baahan siyaasadda shileedee ma siyaasadda difaaca والبرشة نوع والبنسن كدال انتان لفظة تعليم تجي كدال انتان وحيد كعد سنة مرة بعد إمرس دحدي مرة أفراد إن أدري ستين وحن نيل شرحايو بوجاga نيل كنا كلمانا نيل كنا إن النودجري ستين وحيد دودا أتكتبتين لطليا سر لكاشة عمر لكاشة أنا جنا دودا سندقي سندونا وحالي واحد الذين هالقدرن والقدري دونا وحالي واحد الذين هالقبدل دونا wasiirka wasaaradda dhalinyarada sportiska dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya sheegay intii ku goonta garab surmowga dhalinyarada iyo horumarinta qaybashal gedisan ee sportiska may baan sheegay intii oo dhisi doonaan xarunta dhexe dhalinyarada degmada Xudur taas oo ku helo doonaan walwalba iyo baahanyin tababarkan ka beeriyaan fikir jo walna ku bedelaan walna ka daraan waxaan magaalada keenay in la dhiso xarun youth center ah hadda waxa ay hor fadhiyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada wuxuu u baahan yahay xafiiska youth center ka ah oo xarunta dhalinyarada ah wuxuu noqon doonaa xarun dhalinyaro gudaheeda laga heli doono isbitaal yar oo MCH gudaheeda laga heli doono masaajid yar oo lagu dukado gudaheeda laga heli doono library wax ku akhrisata meel aad ping ball iyo volleyball aad ku ciyaartaan xaruntii iyo xafiisyadii dhalinyarada oo dhan macnaha meel yar ma noqon doonto waxay noqon doontaa meel weyn taasna waxaan rabaa inaan idinkugu hambaleeyo reer Xudur adinka inaad u hesheen fursadii koowaad oo wasiirka iyo wasaaradda oo wada socoto inay xaruntaasi dhahdo waxaan ka bilaabaynaa degmada Xudur taasna waxa keenay dadaalka adinkaad intaas u soo taagneedeen qofka haano kumada dhalinyaradii ku faa'iideysadeen tababarkan oo ku hadlayaan fikir jooya sheegeen in muhiimiyada tantilin joogtay barnaamijyadan oo kale wasaaradana ku codsadeen anti marwalbiyada ku warhayta بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مركور مقاقي ولبا الأري محمد مصطفى آدن ولبا حق دوميها أورك dhalinyarada gobolka Bakool runtii geek waliba qaadanay barnaamij dheerow aboodsiinta dhalinyarada koonfur galbeed Soomaaliya ama siyaasadda dhalinyarada koonfur galbeed Soomaaliya runtii waliba waa barnaamij aad wanaagsan unuun hadhawaynay barnaamijkaasaytii sidaysiin buu ogtiin anoon hadalo magaca dhalinyarada gobolka Bakool ka hadalo runtii waliba la dhalinyarada gobolka Bakool runtii siyaasadda iyo dhalinyaranimadu walba anfaansiin intii ay siyaasadda mid holkarnimo runtii wax qabad oo dhanka beero iyo caafimaadka iyo ku doodida dhanka siyaasadda arimaha waxbarashada arimaha caafimaadka intii ay runtii bismillaah ma email raas walaal Maxamed Ali waba meelaha ka dhawaay horta maadada kood wasiirka sportiska tan lamaad meel raas horta meel kulan dhalinyarada ka sameeyo horumarin eedan ka faraxsan intii kulan dhalinyaro la sameey hadan mayba mahadnagaanayo mar lamaad mar sida mahadnagaanayo soo niisheen kulan dhalinyarada fadhiyaan niisheen gobolka Xudur dhashaani magacay waa leeray Firdawsa Ali Abdiraxmaan wali ku soo dhalinyarada geeka antoodin koynay siyaasad dhalinyaradan koynay siyaasadda dhalinyaradan koyn horta dhalinyaro meedku dhalinyaro wali la kooday dadkan dhaxayaan tumeeshan ilaa 40 dhaxayaan dheere wasiirkana ninkooy eedahan dhawaayana mid kale wali ka darsaday shirka intii la ka ekaaylay bay dhawa Abdi Ali Ibrahim
raadiyaha telefishinka koonfur galbeed magaalada Xudur.